magacaygu waa injineer cabdikariim maxamed axmed. aniga magacaygu waa xamse cabdiraxmaan khayre. 2 sannadood oo shaqo qarana ayaan soo maray oo macallin ahaa oo aan u soo shaqeeyay dawladda waqtigaa jirtay. dugsiga hoose waxaan ku dhamaystay dalka jaamacadda Malaysia aan kusoo dhameeyay. ummadan muddada 15 sannadood suugaad xildhibaanadan cid uu bedeli lahayd adigu maxaad ummadda u haysaa maxaad si kaga duwan tahay xildhibaanada qoladii hore waxaad kaga duwanaan doontaa waxaad u taagnaan doontaa maslaxadda iyo danta ummadana matasho. waxaan ka shaqayn doonaa inay reer Jubilee iyagoo isjecel wax wada dhistaan. doorashada golaha wakiilada in aan dadkayga ku matalo sidii aan matalaad dhaba iyo waxa weeye adeega sharci ee dalkeenu u baahan yahay aan u noqdo xubin ku matasha sidii dalkan iyo dadkan sharciyadiisa iyo nidaamkiisu uu horumari lahaa. waxaan la iman doonaa matalaad dhaba ah. anigu halkan waxaan ka ballan qaadayaa xafiiskayga ololaha kolkaan haddaan guulaysto inuu xafiiskaygu sii shaqayn doono. imika ahaan golahan wakiilada ee fadhiyaa waxay fadhiyaan muddo 15 sano sharci ahaanna kuma fadhiyaan. idinka ma haddii laydin doorto oo goliinka laydin geeyo oo la qabanayo markaa muddadii doorashada loogu talagalay mascasigi doontaan mise safoon baad fadhiyi doontaan. idinku xildhibaan ma leedihiin hantida ku filan se waxa raadinaya sharxay yihiin marka ugu horeysa aad yeelataan hal musharaxnimo waxa idin soo saara ama idin soo kala xulo waa odayaashiina ama beelihiina. marka labaad waxaad hor timaadaan bulshada idinka u sheegaya waxqabadyo fara badan inaad qaban doontaan. markaa ma sidii kuwii idinka horreeyey ma odayaasha inaad muujin doontaan mise bulshadii idin soo dooratay ayaad wax qaban doontaan. musharaxiintayadu horta ma taqaanaan xuduudda gobolka Gabiley ay leedahay. kow leeyahay fursad wanaagsan oo furaha ka mid ah ayay noo qabteen inamada dhalinyarta ah ee galbeed joog waana lagu mahad celinayaa. ma waxaad leedahay wax ay u qabteen ma jiraan oo waxay qaban waayeen ba anaa qabanaya ayaad si toos u leedahay. si weliba cod dheer baan ku leeyahay. miyaad aragteen